Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Fariintani waxay ku socotaa dadkii iska diiwaan geliyey safaaradda ee u kala socday Muqdisho iyo Hargeysa. Maanta bishu waa 17, waa maalin Axad ah. Waxaa fariinta soo duubaya oo hadlaya waa Jaamac Aydiid oo ah danjiraha Soomaaliya ee Turkiga u fadhiya. Waa fariintii labaad ee ku socota dadka iska diiwaan geliyey safaaradda ee labada group ee WhatsApp-ka loo sameeyey. Fariintii hore waa aniga idin sheegay in aan ku maqanahay qiime dadku ka bixi karaan. Waan dareensanahay in dadkii raagsadeen aad u raagsadeen weliba. Aniguna waxaan ka xishoonayay mar walba in aan wax qaali ah oo ayan dadku ka bixi karin maadaama dad badan ay duruufo haystaan inaan soo gudbiyo. Diyaarada aad u badan baan wax weydiinay. Maalin walba dhowr diyaaradood baanu la gorgortanaa intaan idinka maqnayn. Qaar baanu dhowr jeer isku noqonnay. Maanta waxaan ka fursan weynay baan rabaa inaan idin sheego markaa. Qiimaha ugu dambeeyay aan idin sheego aan dhaafin kari weyn, soo dhaafin kari weyn. Diyaaradaha badankoodu ma ogola ama ma samayn karaan inay intay halkan ka duulaan Hargeysa dad dhigaan xamarna geeyaan. Taasoo laga yaabo inay sida kale ka jabnaato. In dadka laba diyaaradood lagu kala qaado waxaa ka jaban in hal diyaarad lagu qaado. Taas baa horta wax badan saameyn ku leh daahistayada. Diyaaradda laga yaabo inay naga aqbasho inay Hargeysana dadka dhigto xamarna u qaado. Qiimaha ugu yar ee aanu dhaafin weynay waa $933 qofkii. $933 wey. Waa ka xumahay in aan maanta qiimaha sidaa isna weli qaaliga u ah aan soo gudbiyo. Waxaan anigu filayay dad badan in ay filayeen in aynu heli karno wax $700 iyo agagaarkeeda ah, $700 iyo agagaarkeeda ah in la soo helo. Laakiin waxaan maanta idin xaqiijinayaa in aan ku guuldareysanay in aan soo helno qiimo sidaa u jaban iyo wax ku dhow toban. Marka waxaan doorbiday intaan in badan sii aamusnaan lahaa oo waqti badan sii lumin lahaa in aan qiimaha aan hayo ee aan dhaafin waayey gorgortanka inaan idin sheego maanta. Waxaan ogahay oo kale rakaabka u socda Hargeysa inay iyagu lacagta iska ururiyeen oo ay 80 qof ay haystaan lacagteedii. Lacagtuna intaa aysan waxba ka yarayn. Muxuu ahaa fariintani markaa waxay ku socotaa reer Muqdisho inay ay lacagta iyaguna soo shubaan oo safaaradda ba sahlan in akoonkeeda lagu soo shubee in safaaradda akoonadeeda aan idin soo siino intan bandowga lagu jiro oo aan la gaadhin Arbacada oo weliba aan idin soo siino qaabka loogu shubayo qoraal ah gruubada aan soo dhigno labada gruub soo kala dhigno ama gruubka Muqdisho soo dhigno. Sababtoo ah dadka qaar badani akoono kuma leh bangiyada Turkiga oo lacag kama soo xawili karaan magacooda ku qoran. Qof kale laga yaabaa inuu usoo xawilo. Marka sidee loo garanayaa lacagta inuu hebel soo diray? Arrintaa sida loo soo qorayo iyo akoonada faahfaahintooda iyo waxaan idin soo qori doonaa dhowrkan casho ee bandowgu jiro si aynu ugu dhammayno lacag shubista maalinta Arbacada iyo maalinta Khamiista ah. Labada maalmood kaliya in lacagta lasoo dhammaystiro. Haddii dadka waxaan walwal ka qabnaa dadku inay wada bixin karin lacagta. Haddii dadku ay dadka lacagta soo shubay gaari waayaan tiradii diyaaradda lacagteeda bixin kari lahayd dee talaynu isugu soo noqonanaa. Laakiin waxaan isku dayaynaa intii bixin kartaa
ha bixiso sababtoo ah xitaa haddii la furo diyaaradaha lama garanayo diyaaradaha qiimaha dhow lagu raaci doono oo waxaa la hadal hayaa in tallaabooyin badan oo lagu soo kordhiyo oo waxyaalo badan shuruudo badan kuraas badan la baneeyo oo diyaaraduhu qiimihii hore aya noqon marka waa arrin adag inaan runtii maanta dadka weydiiyo $933 waa arrin adag laakiin waxay ka fiican tahay in aan wakti idinka lumino oo aan idin meermeerino ayay ka fiican tahay waynu istijaabinaynaa arbacada iyo khamiista wixii diyaar u ah inay lacagtaa shubaan ha soo shubeen maalinta jimcahana waynu ishubinanaa inaynu diyaaraddii kiraysan karno iyo in kale dadka hala wada gaadhsiiyo mar kalean ku celinayaa diyaaradaha charterka ah xataa hadday yihiin Turkish Airline iyo Ethiopia Airline oo dadka qaarkood haystaan tigidhadoodii baaga ahaa ma tixgelinayaan tigidhka baaga ah marka taana ha lagu talagalo diyaaradaha charterka sidan oo loo kiraysanayo maalinta horena waan sheegay ma tixgelinayaan waxaan rabaa markaa in aan mar kale idhaahdo waynu labadaa maalmood marka laga baxo bandowga hala dadaalo isla jimcahana waynu isqiimeynaynaa wixii ka dambeeyana de waxaynu u tabaabushaysananaa sidii diyaaraddii loo abaabuli lahaa dadkii sharciye loogu samayn lahaa ay kaga baxaan magaalooyinka kale ee aan Istanbul ahayn ayaynu abaabul gelaynaa waa haddii tirada aynu filano aynu buuxino haddii la haydmo waynu isla soconanaa